isuduwaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal Professor Jake Ismaaciil ayaa socdaal shaqo indhaynaysa markaasina lagu qaybinayay buugta manhajka waxbarashada Soomaaliland ku soo maray deegaano tiro badan ay kamid yihiin Quljeed, Boon, Abuqays, Igacade, Degmalaqas kuwaasoo dugsiyada halkaas ku yaala ardayda wax ka barata ay baahi weyn ay u qabeen inay helaan buugta manhajka waxbarashada Soomaaliland taasi oo kafaalo qaaday isla markaasina ugu deeqay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal ayaa deegaanadaasi ka qaybisay buugta manhajka waxbarashada ee Soomaaliland ay baahi xoog oo aad u weyn loo haysay ayay noo keeneen waxaan ku jirnaa imika fasalkii 8 dhammaan ardayda waxa laga qabtiray in la siiyo dhammaan buugtii daabacneed ee dawladda oo awal aad noogu adkeyd runtii la dhibaataysnaa oo si nagu soo gaaray baadkay aad baan ugu mahadcelinaynaa maxamed aad ugu faraxsanahay buugaantan loo keenay oo noogu soo deeqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland aad baan ugu mahadcelinayaa inkastoo buugaantan awal aan u helanayn oo awal lacag ku jirnay maanta bilaash ku helnay manhajka dugsiga oo saddex Quljeed maanta waa dugsiga koowaad ka bixin maanta dugsiga kale eergeedana waxaan gaarsiin doonaa ilaa Sandame degmada Quljeedna dugsiga ugu horeeyay ee laga siiyay maanta la guddoonsiinay fasalkiisa 8 inta kalena waa la siin doonaa hadduu eeqayno marka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dawladdan kulliye ee sida fiican maxay iskaga xil saartay in ardayda dugsiyada dawliga u iibiso kutubta marka waxaan jecelahay in buugtaasi intii aan dhowran karno ee ayna gaarsiin karto aan maxay ahayday in dhowrano fasalka 8 ilaa fasalka 1 aanu siino buugtii manhajka waxbarashada ee arday kasta uu heli 7 buug oo loogu talagalay inuu si bilaash ah ku helo maadaama awal buugtan ahayd lacag waxa markaa imika loogu talagalay in arday kasta lagu siiyo buugga bilaash gaar ahaan dugsiyada dawladda iyadoo ujeedadoodu maxay tahay buugga loo bixinaa buugtaasi lacag bay ku taagneed sidii ardayda tayadoodii waxbarashada kor loogu qaadi lahaa sidoo kale gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal Professor Jake Ismaaciil ayaa deegaanka Bisile oo baahi weyn u qabay dhismaha dugsi halkaas laga hirgeliyo soo kormeeray iyo ardayda deegaankaasina ay ku hoos dhiganayeen geed hoostii ayaa Professor Jake Ismaaciil gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal oo halkaas ka ballan qaaday in ka wasaaradahan ay dadaal xoogan u gali doonaan sidii deegaankaasi looga hirgeli lahaa dhisme dugsi dhameystiran dugsiga Bisile waxaan ahay maamulaha dugsigan runtii waxaan ahay radaga deegaankan ka soo jeeda oo halkan u dhashay baan ahay waxaan shahaadada koobaad ka qaatay jaamacadda Camuudi labaad baan jecelahay inaan goobtan ka dhigo goobtan oo u bixiyay deegaanna inay dawladdiisu dhalan gargadan adkaysaan waxa la dhisay 2000 anu waqtiga xaruur baan ahay oo dadkii loo dhisay aan ahaa intaas oo dhan beeshu way jajabayso kolba dariiq way qorinaysay maanta aniga ayaa u fadhiistay inaan beeraha iyagana barto dadkaygana inaan wax baro aniga halkaas u fadhiya wax ilaahay loogu mahadiyo cadadka ardayda halkan wax ka dhigatahay awal waxa uu lugeyn jirtay 7 kiiloomitir iyo badh waxay tagi jireen dugsiga la yiraahdo Dacarburuq way ka gayoon kari waayeen masaafadii aad ugu fogaatay awgeed sida awgeed ba aasaaska keentay halkan in girgida la taago waad u jeedaan halka ay fadhiyaan in girgitaay codsiga aan u gudbinaynay wasaaradda iyo tiimka uu hogaaminayo gudoomiyuhu waxay ahayd in nala soo arkaan alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay baa qadaray maanta in nala arkaan ubadku meesha ay fadhiyaan iyo macalinka iyo maamulka jooga gudoomiyaha aad baad u maasan tahay indhahaaga waxaad ku aragto iyo insha Allah tacaala wax nagu qaban doontaa ka wasaaradahan oo ka wakiila arday kasto wax baranaya waxa naga saaran mas'uuliyad gaar ah suurtagalna ma inuu ardayna dhagax ku fadhiyo midna meel fiican oo kuraastii iyo fasalladii ay u dhameystiran yihiin insha Allah marka waxaan ku rajaynahay oo ballan qaadana hadii Ilaahay raahdo in horta meeshaas Ilaahay nagu asture in sida ugu dhaqsaha badan leh ay u yeelato goob waxbarasho oo agabkaygu dhameystiran yahay Maxamed Xasan Ismaaciil bil telefishinka Ariel magaalada Boorama